shaqada ugu horreysa ee ninkani qabto subaxdii marka uu xafiiska tago waa inuu dhulka seexdo oo uu noqdo gogol lagu tunto. madaxa shirkadda ayaa jidhkiisa si naxariis la'aan ah ugu tumanaya si uu xafiiska u galo. tani ma ahan dulinimo ee waa shaqadiisa rasmiga ah. inkastoo aad u malaynayso in la bahdilayo, haddana wuxuu qaataa mushaar malaayiin ah, waayo dunidan dadka ayaa loo isticmaalaa beddelka qalabka. mana jiro wax sharaf ah oo shaqada ku jira. inkasta oo shaqadiisu tahay mid adag, haddana nolosha uu gurigiisa ku haysto waa mid raaxo leh. hal saac subaxnimo markuu tooso, leydka iftiimaya waa qof shaqaale ah oo taagan. xitaa muraayadda uu wejiga ku dhaqanayo waxa uu haya qof gaar ah. wuxuu u fadhiisanayaa quraacda, balse miiska iyo kuraastana waa dad loo kiraystay inay qaabkaas u istaagaan. qarashka uu bixiyo si uu adeegan u helo waa lacag aad u badan bishii. xitaa nalka kore qof baa haya. markuu diyaar garoobo, jaakadiisa wuxuu ka qaadanayaa haweenay u taagan sida khaanad oo kale oo xitaa furayaasha afka ugu haysaa. kadibna wuxuu u baxayaa shaqada isagoo waddada ka dhex raadinaya gaadiid. laakiin tagsiga halkan ka jira ma aha baabuur, ee waa nin xoog badan oo dhabarka kugu qaadaya. keliya waa inaad lacagta bixisaa, isaguna wuxuu kugu geynayaa meel kasta oo aad rabto isagoo si xawli ah u ordaya si aanad u daahin. xitaa nalka taraafikada ee waddooyinka waa dad dab ah oo dharkooda beddelaya cagaar iyo casaan si ay u kala hagaan gawaarida iyo dadka. ugu dambayntii wuxuu soo gaaray dhismaha shirkadda xilli uu ku sigtay inuu daaho. albaabka weyn ee shirkadda ma aha mid koronto ah, ee waa rag isku xidhan oo kala baxaya. markuu wiishka fuulo, nidaamka wiishka kor u qaadaya wuxuu ku shaqeeyaa miisaanka nin aad u buuran oo dhanka kale ka soo degaya. shaqaalaha kale ee wiishka kula jira waxay u muuqdaan kuwa nolosha ka dhacay oo daalan. markuu gaaro dabaqa uu ka shaqeeyo, wuxuu toos u aadayo qolka alaabta la dhigto, halkaas oo uu furayo khaanadiisa gaarka ah. khaanadda gudaheeda waxaa taagan haweenayda dhexaad ah oo shaqadeedu tahay inay alaabtiisa xambaarto. wuu ku soo xirayaa albaabka, taasoo ka dhigan inay halkaas ku jirayso oo ay ku dhibtoonayso ilaa uu shaqada ka baxo. ugu dambayntii, isagiina wuxuu gudagalayaa shaqadiisii, wuxuuna dhulka u seexanayaa si uu roog ugu noqdo madaxdiisa. waxaa laga yaabaa inaad u aragto wax xun, laakiin ninka isaga ku tumanaya laftiisa ayaa laga yaabaa inuu meel kale u aado si loogu tunto ama uu qalab ugu noqdo qof kale oo ka sarreeya. haddaba ma ka shaqayn lahayd shaqadan malaayiinta dollar ah?